qaybta saddexaadna waxay ahayd dad ku xiran feerfeer Itoobiya oo shacab iyo ciidan bay isugu jira oo meesha laga qabtana ay Soomaaliya tahay sababta loo qabtana aanan garanayn ilaa haddana cid naga hadashay aan weyn haddaan fariin kasta u dirnay dabcan ayadana intaa uma dhaafayo wixii intaa ka dambeeya waxay ila tahay si dawladnimo ama xafiis ahaan aanu xisaabtami doono waxaan aaminsanahay si afduuba dadka in lagu haysto ee aan si nidaam loo marin afduub baa lagu haystaa sababtu tahay askari beer ka qodanaya beeraha Soomaaliya ku yaala ee Xodowagle xuduudda Soomaaliya waxay martaa Burdhiinla waxay xagga ka xigtaa 3 kiiloomitir iyo abaaf ee xagga ka martaa Burdhiinle waan garanaynaa meeshii marta xuduudda Soomaaliya ciidanka ayagoo garanaya intaas maalin walba inta soo gudba xuduudda Soomaaliya ka qabanaya dad waxay ila tahay isriixriixii Soomaaliya ka jiray qayb ka mid ah waaye waxa dadka lagu qabanayaa sifa sharciya looma marin annagu marka ugama jawaabayno hab la xiriira arrintaas waxaan uga jawaabi doonaa hab dawli haddii Alla idmo waxaan mari doonaa wasaaradda arrimaha dibadda nidaam sax ah aan uga jawaabi doonaa dawladda federaalka ka mas'uula irka iyo dhulka iyo badda intaba dawladda federaalka ka mas'uula federaalka Itoobiya waxaan leeyahay xuduudda ayaga ka mas'uul ciidamada waa u joogaan ha xakameeyeen xuduudda Itoobiya ha xakameeyeen hana la ilaaliyo mar horena waan sheegay madax banaanida Soomaaliya ha la dhowro xorriyadda Soomaaliya ha la ilaaliyo dad shacaba iyo dad ciidan halka laga qabtay afduubay ugu xiriyeen halka magaalada ugu xiriyeen uguma xirna sifa sharciya ma ugu xirna waa askari waa fasax taliisi wuxuu joogaa halkan uu joogaa abaanduli guutada cid kale xaajootana uu leeyahay annagana cid kale xaajootaan weyn halkaas uu afduub ugu xiriyeen tuulaysu ku xiriyeen meesha degmadaas ku xiriyeen waxaan kor u sheegaynaa oo aanan ka gaabsanayn galabta arrimahaasi waxay keenayaan cawaaqib xumay keenayaan cawaaqib xumo si badan dadka u saameysay keeni doonaan waxaan leenahay dadka afduubka loo hayo hala soo daayano hala soo daayo dadka afduubka loo hayo ciidanka Itoobiya haya nayu police nimanka la yiraahdeen waxay ka shaqeeyaan aanan garanayn iyo niman maxaa la yiraahdaa daaqdaaqime la yiraahdaa I don't know dad oo maalin walba xuduudda Soomaaliya aad moodeen macdani ugu daadsan tahay 20 firi tuulada Abaaley 16 kiiloomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha Soomaaliya calanana ka taagan Itoobiya Soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karna sababta looga taagino ma garan karno sababta looga taagan 16 kiiloomitir iyo bar ay gudaha ku soo jirtaa nimankan waxa laga qabtay Xodowagle iyo Dareerteenta ka dhaxaysa xagee meeshaas ma Lagos ma meeshaas Nigeria may ku taala Soomaaliya ku taala xuduudda Soomaaliya meesha martan waa la garanaya war hal xishoodo in badan baan xishoonaynay hal xishoodo ciidamada sida sharci darrada u soo galaya xuduudaha wadankana ama gobolka anaga waan hadda mas'uulka ka nahay soo galayana indhaha kama qabsan doono haddii san naga xishoon madaxda gobolka ismaamulka dawladda deegaanka la xiriirteen oo arintan ma kala hadasheen haddii ay kala hadasheen samceeda ka yiraahdo waanu kala hadalnay halkan aan ku kulannay balad weyn nala tageen problem ka jirana waan u sheegnay weyna og yihiin hadda mid taagan ma kala hadasheen ma weli kala ma hadal Itoobiya la hadlay sarkaalka uu jooga halkan in arintan wax laga qabto weli ma dhicin wax laga qabto ishuga marka sida Allah ugu talagalo noqon doona laakiin waxaan filayaa haddii aan sifa sharciya aysan nimankaasi aysan u noqon ee sida afduubka dadka mar walba loo handadaya ay ku wadaan waxay ila tahay afduuba shaqay doono annaguna gacmaha ma laaba doono